وبركاته ولا عليك وايد السلام يميل بأدوك تكتاب ولا شيء نجم MBR هالك دقيقة دعوة رسالة و MBR خروج دمر هيلو إنك سبسكرايب كسرتي الفيديو وقدر نو لايك ريسد مارتي حوق لمارت أوصعنا وضد الفيديو جين وجارو عادي أدو ما ستين سيدا يسبوت جريسين كومنت سيدي نقروح دبضان ما شاء الله تبارك الله عادي أدو كم هاد علينا ولا عليك قالي عاو حربا إنا شرحه guurka afar stage buu istaagaa afar qeyb buu meel u istaagaa labada qof oo wada nool hodan online caawa sabirkeeda waxaan u soo qaatay waxaan arkayay video ay kaga hadlaysan ninkeeda ilaahay u naxariisto waxyaabaha ay u qabanaysa iyo wanaaga ka dhaxay waxaan arkay marka gabdho fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin oo si negativity ah ooga hadlayaan oo markaad fiirisid aad isdhehaysid subxaanallah gabdhahan maxaa ka qaldan what's going on aad isdhehaysid aad u malaynaysid ixtiraamkii iyo jacayl inay ma artay waxbaba aysan ka garanayn aa u malaynaysaa midna waa dhihi kartaa waxa isleedahay waa maybe gabdha soo qalbi jabay ee maartay waa dhihi kartaa dhinaca kale oo u fiirin kartaa laakiin waxaan rabaa arinta la aljigeed waxaan rabaa inaan gabdhaha caawa u sharaxo guriga 3-4 position buu istaagaa inuu lagu dhaqo 3 waa lagu dhaqi karaa laakiin hal waa lagu kala yaaci karaa qofka muslimka ah waxa fiican adduunka intaadan xanqalka u taagin waxa ka horeysa inaad aakhiradaada ee xanqalka u taagtid qofka muslimka ah waxa fiican inuu mar walba u baqo aakhiradiisa adduunkan waxba ma sheegay cimrigaaga kor haduu u kaco 60 sano maalintaad gaartid waxa tahay qof waayeel ah 60 sano wixii xaq ka jiro qof waayeel oo waxa tahay markaas sidii cunugii markaad yareed shalay processki shalay markaad yareed aad joogtay baad ku noqonaysaa waxa lagu siinayaa cunto jilacsan waxa lagu siinayaa boorish waxa lagu dhaqaaleynaa sidii cunug yar camal because markaas iyada waxaaba tahayba qof weyn laakiin oo hadana marti cunug yar camal booskiisa joogaata marka adduunka waa wax iska yar waxa lagaaga baahan yahay marka mar walba inaad aakhiradaada u baqdid mar walba inaad aakhiradaada u baqdid mar walba inaad isdhahdid waxan maxaa iiga iimaan karo waxan aniga maxaa iiga iimaan karo labada qof markay wada nool yihiin waajibaad xoog laha saaran oo lagu cadaab tagi karo oo lagu janno tagi karo labada waajibaad meesha saaran ninkana waajibaad baa saaran gabadhana waajibaad baa saaran waajibaadkaas asaga ah uma baahnid inaa aniga iga baratid uma baahnid inaa nin kale ka baratid uma baahnid inaa qof kale ka baratid ilaahayga waaxidku weynaa baa kuu sharaxay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam baa noo sharaxay sida guryaheena aan ku dhaqi lahayn waxyaabihii aan qaban lahayn qof walba guriga meeshuu ku taagan yahay sidii loogu dhaqmi lahaa arintaas iyada oo ilaahay liskaga baqo oo ninkan meeshuu ilaahay guriga ka istaajiyay iyo positionku ilaahay ka siiyay haduu ka soo baxo gabadhana ay ka soo baxdo wax isku dambaaba lama arkeen anaka marka waxaan leenahay wax isku sheeg iyo talo qofkii qaadanayo iyo qofkii ka tagay isaga u taala hadii kula qurux badnaan weyso meeshaas uga tagaysa hadii kula qurux badnaatana waad qaadanaysaa adiga iskala go'aanka marka arintaas la aljigeed waxa igu qasabtay inaan sharaxo 4 qodob ee guriga lagu dhaqi karo hal qodobna lagu kala tagi karo 3 qodobna lagu dhaqi karo gabdhaha marka waxa iskaga dhax wareeray gabdhaha la leeyahay naayaa heede maartay dhaxda xiro ninkan ignore garee gabadha la leeyahay waa gabadhe nood gabar walba ma aha gabadhe waa gabadha la leeyahay ninkan haduu maqan yahay ku mashquuline ignore him asaga dhanbo maartay markuu gurigaas imaadana ixtiraam soo dhabe ignore garee gabadha la leeyahay waa gabadhe arintu isma saarno wax yar videogan attention-kaaga isii dhagahaaga kali uma baahni waxaan u baahanahay attention-kaaga inaa isiisid 4 qodob aan rabar karaba inaa idin sheego kow waa 2 qof oo wada nool oo maartay isjecel waa 2 qof oo jacayl ka dhaxayso waa nin xaaskiisa jecel oo u soo bandhigo jacaylkiisa oo u sheego jacaylkiisa oo mar walba waa ku jeclahay hadiyad siiyo waqti siiyo time siiyo aan wax ma aragtay aan waxba kala qarsanin aan waxba kala xirxiranin aan telefoon kala xiranin aan telefoon password aan ku kala qarsanin ilaahay ku madarnaade ninkaas telefoonkiisa halka iska yaalo qofkii soo wacda horta xaaskiisa hortiisa kula hadlayo emailkiisa passwordkiisa ay hayso password la uma kala qarxa dad kaftamaayo waa dad wada farac ciyaarayo waa dad wada sheekeysanayo waa dad happy isku ah waa dad
maartay ayaki hadday ilmo leeyihiin ayaki ilmahoodii banaanka wada aadayo waa dad hadiyadooyin isku hadiyadeeyo waa dad hadday safar kala aadaan ayakoo ilmo isku dhala haddana 2 hour 3 hour 1 hour telefoon ku wada sheekaysan karo oo habi isku faraxsan kan maantooda wax ka qaldan u sheegi karo dhigi karo waxaasa kaa qaldana beriyahan maxaa si kaa isla kaftami karo oo wax kasta uu arko qofkan oo isku furan oo maartay qalbiyadooda isku furan yihiin oo maartay waxba aan kala qarsanaynin gabadha hadii aragto ninkeeda wax sika inay u sheegi karto dhigi karto beriyan waxba sika ninka duu arka gabadhiisa wax sika u dhigi karo beriyan waxba sika dad waa dadkaas waa dad isjecel oo isfahansan nolosha isku fahmay oo marna friend ah oo marna wife and husband isku ah oo marna maartay walaalo isku ah oo nolosha isla fahmay oo isla dadka labaad ku soo haray dadka labaad waa dad iska normal life iskaga jiro sidii Soomaalidii hore ee guriga lagu dhaqi jiray ninka shaqo aadaya gurigiisu imaanaya ilmihiisu ka warhaya xaaskiisu ka warhaya maartay ma hadal badno ma dharaamo badno ma ku mashquul xaaskiisu kuma mashquulo ilaahay kuma darnaade waa nin ma aragtay iska aamusan oo aan maartay xaaskiisu ku mashquulin biilashiisa subaxsada gurigiisa kalihiisa cuntada ilmaha iyo wixii la dhaho si wuusiya laakiin I love you iyo hodhodan ma jiro gabadhan gurigeeda iska joogtaa qodadeeda iska karsataa cuntadeeda iska karsataa weelasheeda iska dhaqataa ninkeeda markuu imaado way soo dhawaysataa ilmaha la iska dhalaa dad waa dadkaas laba migaysin mid saddexaad ku soo haray mid saddexaad waate mid saddexaad waa saddexaad ku soo hartay mid saddexaad marka waa nin naago shukaansi badan gabadha ma ixtiraamay ixtiraam waxa la dhamaa hadduu naag shukaansan gurigiisa ku dhex shukaansan telefoonkiisa passwordka u xiray muxuu ku leeyahay maxaa telefoonkii ku daba dhigay telefoonkeyga aniga iska leh telefoonkeyga hadday gabadhi wacdo wuxuu leeyahay waad call badan tahay way asaa igu soo call gareynaysaa ilaahay kuma darnaaday wax communication dhan male ninkaas waa nin adag waa nin gabadhi ku adag waa nin gabadhi ku adag just asaga dhanbo telefoonkiisa passwordka ku xiranaan dhahay hadday wacdo wuxuu leeyahay wacitaan badnida drama badnida maxaad isa wactaa ilaahay kuma darnaaday anytime uu asaga qofka u baahdo u wacdaa maartay xilligu rabo buxuro xilligu rabo imaadaa meesha aad ma dhaho meesha ku maqan ma dhaho meesha ka imaado ma dhaho waa nin maartay aan iska barakeysan u baan dhihi karaa okay gabadha la leeyahay marka ignore garee waa gabadha la leeyahay ignore him waa gabadhaas gabadha telefoonka passwordka looga xirta gabadha maartay hadal fiican la dheheenin gabadhaas way marka gabadha la leeyahay saaxiib fadhiga iskaga kac qofkan ignore ku qabo telefoonkiisana passwordkiisana ha weydinin afaarihiisana ha gelin hadduu kaa baxana ha wacanin waxbana ma aragtay yeelin adiga isku mashquul dantaada raaco laakiin gabadha number 1 ah ninka jecel haysato maxaa lagaaga baahan yahay adigoo naftaada jecel horumarkaada ka shaqeynayo adduunkaaga horumarinayo sanayo naftaada qurxinayo caafimaadkaada ka shaqeynayo danahaaga horumarsanayo naftaada aad jeceshahay oo isku kalsoon tahay ba haddana maxaa lagaaga baahan yahay markuu ninkaaga waqti inaad siisid inaad respect gareysid waqti siisid jacayl fara badan aad siisid ninka markuu ku jecel yahay waa only chance oo aad gurigaaga iyo ninkaaga qalbigiisa ku degi kartid gabadha Soomaali markii la jecel yahay dabeecadahan iska daaya markuu ninkaaga ku leeyahay I love you kana tahay saana tahay I need you asaga time ka raadina asagu ku daba socdo give him attention waqti inaad siisid isku day inaad adigana moo jacayl wanaag farxad aad siisid soo dhaweyn fara badan inaad siisid isku day because qofka markuu diyaar ku yahay baad maartay jacayl iyo qalbigiisa adeeg kartaa gabdhaha Soomaali markii la rabo indhaha iska tiraan kibir baa muujinaa sanka taagnaa siin kartid give him time waqti si jacayl si ixtiraam si respect garee soo dhawe midda kale aku sheegay waxay tahay gabdho taas ida video kala kaga soo hadla video hadda abaar u socda iga daa budget kala kaga hadlaya tan afraad ku soo hartay marka oo loo baahan yahay
inaad guurkaasi adan waqtiga iskaga dhuminin guurka noocaas oo kale hadaa ku jirto please and please aakhiradaada ilaahaygaada u baq qabri baa kaa dambeeya xisaab baa ku sugaysa labada qof waajibaada dhexdiina saaran qodobkan afaraad hadaa ku jirtid baa waxaad u baahan tahay inaad arrintaada culimo u bandhigtid arrintaada aad isku daydid arrintaan adigoo ilaahay ka baqaayo inaad xal u heshid oo wada sax oo toosan oo lagu wada dhaqmo inay kuu soo baxdo hadday kuu soo bixi weyso inaad walaale macanto duurkaaga aamirtid banaankiisa maradiisa geed ma qabsato idinkoo qofkaasaa iskugu mashquulsan haddaa kala dhimataan dhibkeeda leeda kow ninku caynayo ku aflagaadeynayo nin aadan ku haysanin arrintii ee waajibkii weynaa uu ilaahayga waaxidka weynaa uu muhiimka ahayd ee ma aragtahay gabadha ay ku codsan karto furiin haddaadan ku haysanin ninkaas uu ku caynayo ku aflagaadeynayo jirkaaga wax ka sheegayo gacan kuu qaadayo ee ma aragtahay wax walbo dhibaato walba kuula hortaagan walaasheedii irsaaqada ilaahay baa bixiyo qof noocaasi lama noolaan kartid naftaada xoree naftaada isku day inaad culimo la sheergareyn kartid culimo la fadhiisan kartid qaadi raadsan kartid inaad xal sax oo fresh oo nolol qurux badan inaad ku noolaato haddaad ku noolaan karin oo qofkan inta aad ka helayn ilmahaaga intaad xijaab xirato indha shareer xirato mashaajidka hortiisa intaad istaagto baarakallahu fiikum dheh inta lagu cayn lagu aflagaadeyn gacan lagu qaadi abkaa isirkaa lacayn biil lagu siinaynin gogol aada haysanin waxba aysan what's wrong 9 baad ku dhalatay 9 buu ku dhashay no way maxaa khaldan arrintaas iyada ku jirta waxa u baahan tahay inaad wake up samaysid gabdha Soomaaliyeed ilmaad ku marmarsiisotiin war ilmaha irsaaqada ilaahay baa bixiyo ilmaha waxaa loo baahan in physically emotionally and mentally in laga koriyo ilma hooyo oynayso oo dhibka ku jirto oo la caynayo la aflagaadeynayo oo maartay murugaysa maxay korin kartaa maxaa ilmo soo saari kartaa ilmaha booshi ibriisi baasti in la siiyo kelima ah gabadha nooca hada tahay waa inaad wake up samaysid arrintaasna ka falxaatid peace and love